السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rajaynayaa inaa kulligiin caafimaad qabtaan kusoo dhawaada xalqada koowaad ee fadhiyo taxana ah oo insha Allah halkaani mataqaana aan idinkugu soo gudbin doono waxaana markaa aan kusoo qaadan doonaa qisooyin iyo xikmado oo isdultaagid mudan iyo ku cibro qaadasho mudan waxaana markaa barnaamijkan ugu magac daray waxa la dhahay ee kusoo dhawaada xalqadiisa koowaad soo dhawaada mar kale gudaha oo sii gala mawduuca maalin maalmaha ka mid ah ayaa hudhud iyo tuke hudhud waxaa laga wadaa waa shimbirka oo fooda halkaan markaas ku leh sawirkiisana waa midka markaas hadda u jeedid sidoo kalena quraanka waa lagu sheegay shimbirkaani qisadii asiga iyo nabi Suleymaan markaas dhaxmartay markuu nabi Suleymaan uu raadiyay aayadda quraanka suuratul naml ay ahayd wa tafaqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin markaan u soo laabano sheekadeena marka hudhudka iyo tukihii waxa ay ku murmeen god biyo ku dhex jira mid walbana wuxuu ku andacoonayay in godkaasi uu asiga iska leeyahay isqabqabsi dheer kadib way awoodi waayeen in dhaxdooda khilaafkooda ay xalistaan muran dheer kadib waxa ay ku heshiiyeen in arintaani ama isqabqabsigan hadda iyaga ka dhaxeeyo inay u gudbiyaan garsooraha shimbirka loo yaqaano gumayska marka way israaceen waxayna u tageen xaakimkii waxayna ugu warameen qisadooda marka xaakimkii oo gumayska mid walba wuxuu ka dalbaday inuu cadeymo dheeri ah uu la imaado wuxuuna ku dhahay qofkii cadeymo dheeri ah ila imaado godka biyaha asiga iska lahaanayo marka way isfiirfiiriyeen kadibna way aamuseen markii ay muddo aamusnaadeen ayaa garsoori wuxuu ogaaday labadoodaba inaysan wax cadeen ah oo dheeri ah aysan keeni karin kadib marka garsoorihii isla markii go'aan ayuu gaaray wuxuuna xukmiyay godka inuu leeyahay shimbirka hudhudka markaa asigoo yaabsan ayaa wuxuu dhahay garsoore maxaad godka aniga iigu xukmisay ama aniga ii siisay marka garsoorihii waxa uu ku jawaabay adiga hudhudo dadka dhaxdooda waxaad ku leedahay sumcad daacadna waa tahay sidaasi ayaan marka kugu xukmiyay oo godkaana aan ku siiyay hudhudkii cabaar ayuu aamusay markaasi ayaa wuxuu dhahay hadday arintu tahay sida adiga aad sheegtay Allah baan ku dhaartay ma laga yaabo inaan sameeyo sifo khilaafsan sifada markaasi dadka dhaxdooda aan ku leeyahay godkana waxaa iska leh tukaha hudhudka marka hadalkiisa wuxuu ku daray inaan sifadaasi daacadnimada iyo runta ku caanbaxo ayaa iga fiican inaa kun godod biyo aan helo sheekadiina marka maanta meeshaas ayuu ku eg tahay laakiin sug intaadan ka bixin sheekadani maxay tahay faa'iidada aan markaasi aan ka dhex baxsanayno ama maxay tahay waxa isdultaagida mudan sheekadan marka waxa aan ka baranaynaa waxay tahay sumcadaada waa raasumaalkaada iyadana cumrigaada ka dheereynayso ee ku dhegnow si fiicanna u ilaalso oo ha ku difaacdo inta aan nooshahay iyo xataa markaa dhimatid oo noqo sidoo abwaanka yiri qad maata qawmun wama maatat shamaa'iluhum وعاش قوم وهم في الناس أموات marka hadaan gabaygan aan ku fasiro micnihiisa waxa waay dad baa dhintay laakiin waxa hadda haray sharafkooda ama marka dadkani hadda nool waxa ay ka sheekeynayaan yihiin dadkaasi sumcadooda iyo sida markaasi u shaqeysteen waxa tusaale markaasi ku anaga aan Soomaalida Sayyid Maxamed Cabdul Xasan iyo Ahmed Gure sidoo kale as anbiyada markaan ka hadlayno nabiyada waxay dad oo shamaa'ilkooda ama sumcadooda markaasi oo ay hartay sidoo kale hadda aragteen Uthman bin Affan khulafaa ar-rashidin iyo kulli marka mar walbo hadda dhimatid wax markaasi ku haray ha noqdo wax sumcadaada ka sheekayso sidoo kale beedka kale wuxuu ku dhahay waasha qawmun wa hum fi an-nasi amwatu oo micnaheedu ay tahay dad baa dadka ku dhex nool iyagoo meed ah macnaha dadka qaarkood iyagoo aanan sumcad lahayn ay dadka ku dhex nool yihiin marka maba laga yaqaano waxtarna ma lahan Salman maado ay idin soo jeedinay insha Allah waxa ay noo balan ah xalqada xigta halkan ayaan ku joojinayaa waa mahadsantiin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk